inay nabaddu wax wanaagsan tahay labada qof oo wadada dhex fadhiistay waxa soo bilaysnay oo yimaadeen waa la hadlaya waa lagu qancinaya inay wadada ka kacaan kadib markay diidaan aayar baa la qaadaya iyagoo iska fadhiya waliba wax loo sheegaya markay qaadaan inay dhici karaan inay garab wax noqon karaan inay u fiican tahay inay gaadhiga keligood iska koraan bilayska kama badna waa labada qof iyo laba qof oo kale la qaaday ilaa bilayska nooca dalaayadaha ku buuda loo keenay bilayska nooca magaalada loo keenay waxaas baabuur xaniban waa iyaga dad iyagay daawanayaan laakiin waxa muhiimad u tahay labadan qof haddaba wax isweydiinaysaa maxay labadan qof ama afartii qof ee la wadada laga qaaday u fadhiyaan meel ilaa muusigan iyagaa wata sababtu waxa weeye waa urur u mudaharaadaya cimilada adduunka sii kululaanaysa weeyaan waxay rabaan in cimilada adduunka wax laga qabto in lacag loo ururiyo cimilada adduunka la hagaajiyo cimilada adduunka ayay arkayaan inay dhibaato badan ku hayso wataas aayar baa la dalacayaa si yaro tartiibaa loo qaadayaa wax la yeelayaa ma jirto wakaas nabadda iyo kala dambaynta waa intaas dareenkiisa wuxuu ku muujinaya inuu waddada xidho imanka inan taayar baa xidha keligeed inan taayar waa iska jaasaysaa waa iska habi aayar joogta inaanu biliisku dilayn inaanu dharbaaxayn waxa laga yaabaa ehelkeediiyo waalidkeed inay hareeraha ka daawanayaan laakiin si yaro habiya اختيارkeeda iyada iska muwaanidada iyadana biliiska ka imanaya ayr basiir tartiiba loo qaaday dareenkeeda muujinaysaa waa la qaaday gaadhiga la rabaa ayr saaray guddo wala weydiinaya wixii ay sababtay iyadana ka shaqeynaysaa wakaas inantan baa ugu daran martaas waxay saarantahay 3 saacadood marka iyada keligeed waa in wiish loo yeedho weeyaan حل كده اللي هنا حل وين لك انا حل يدي بداشي والله مرة عادي ودالي سيدة صور عايز